Wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba nagala socotaan halkani waa Wacaal Media kusoo dhawaada muuqaal kale kusoo dhawaada mid ka mid ah barnaamijyadeennii aan idiin soo gudbin jirnay maantana barnaamijkeenna waxa aynu ku soo qaadan doonnaa waa maxay waxa loogu yeero Illuminati ama diinta shaydaanka saan wada ogsoonnahay caalamka hadda aynu ku noolnahay waxaa jira dad fara badan oo diimo kala duwan haysto iyadoo xitaa ay jiraan kuwa aanan diin haysanin balse barnaamijkeenna maanta waxaynu ku faaqidi doonnaa intiisa badan qolada la yidhaahdo Illuminati ama qolada ibliiska caabuda aynu qeexno waxa ay tahay Illuminati ama ay ugu yeeraan diinta Illuminati ama ereyga kaleeta ee Lucifer waa magac Greek ah oo asalkiisu uu ka yimid ereyga iftiin qolada la yiraahdo Illuminati waa koox aad u xoog badan oo ka jira caalamka oo dhan gaar ahaan wadamada reer galbeedka ayay xoog ku leeyihiin waxa ay xukumaan dhammaan ganacsiyada iyo arrimaha siyaasadda ee dhowr dal oo ka mid ah wadamada reer galbeedka laakiin si sharci ah aanan u jirin oo weliba si qarsoodi ah u shaqeeya Illuminatigu ama diinta ay ku sheegaan Illuminatiga waxaa la aasaasay 1 May 1776 waxaana aasaasay mid ka mid ah dadka ka soo jeeda dalka Jarmalka ujeedada ugu weyn ee loo aasaasana waxa ay ahayd in ay ku caabudaan shaydaanka ama ibliiska waxaana ururku ka aasaasmay markii ugu horeysay gobolka Bavaria ee wadanka Jarmalka ayadoo uu aasaasay nin la yiraahdo Adam Weishaupt waxa uuna ku fiday dunida inteeda kale isagoo si aayar ah loo sii fidinayay waa dhaqdhaqaaq aragti saqaafadeed ku dhisan oo caqli shaydan la adeegsanayo waxaa lagu tilmaamaa ururka ugu khatarta badan adduunka ee u hubaysan si la yaab badan oo qarsoodi ah inkastoo aanu ururkani weligii sharciyad jiritaan ah oo rasmi ah uunan ka helin dawladda Jarmalka oo ah halkii uu markii hore ka bilowday aanna si rasmi ah loo aqoonsaneen oo uu qarsoodi ku shaqeeyo haddana waxa uu soo saaray ururkani xubno isaga ka tirsanaa oo markii dambe dalkaasi Jarmalka ka noqday siyaasiyiin caan ah oo weliba ku guuleystay kuraas fara badan talada dalkaasna wax ka soo dhisay si walba yahaataba markii ugu horeysay ururkan ee caalamka buugaagtiisa laga akhrista waxaa soo caanbixiyey buuggii uu qoray qoraagii caanka ahaa Dan Brown ee la dhihi jiray The Da Vinci Code ururkan marka uu qof ku biirayo waxaa xaqiiqo ah oo laga rabaa in uu aamino oo weliba uu tala saarto shaydaanka isagoo aaminaya in shaydaanka ma ogi wax kale aysan jirin sidoo kalena uu noqdo qof aanan diin lahayn oo ah mulxid marka intaasi laga arko oo tijaabooyin fara badan laga qaada ayaa si toos ah waxa uu soo dhexgalayaa shuruudihii waaweynaa ee ujeedada ururka iyo sidoo kale waxyaabaha looga mid noqonaya ururkani kuwaasi oo ujeedadooda ugu weyn ay tahay in lala dagaalamo diimaha caalamka ka jira ee samaawiga ah ayadoo sidoo kale kor loo qaadaya hanka iyo fikirka ah in la rumeeyo shaydaanka ruuxa marka uu ka mid noqdo waxaa la sheegaa in la amro in uu sameeyo 3 shay marka koowaad qof uu isaga jecel yahay ama ku dhow in uu dhibaateeyo weliba uu dhiiggiisa cabo tan labaad waa in uusan weligii wax diin ku salaysan uusan fagaare la iman in ururka fikirkiisa uu sii faafiyo sidoo kale waxa ay sheegaan dadka ka mid noqonaya in la siinayo hanti balse hantida lagu siinayo ayaa waxa ay tahay marka laga arka in aad dhiig cabto waxaa la sheegay jiritaanka Illuminatiga oo ah jiil ka mid ah shayaadiinta oo lagu tilmaamo inay yihiin kuwa ugu awoodda badan waqtigan casriga ah ayagoo dhinaca kalena ku dhex milmay bani'aadamka in ay yihiin kuwa ugu fikirka iyo mayalka adag marka ay timaado arrimaha siyaasadda wadamada ay ku lug leeyihiin waxaa ka mid ah wadanka Mareykanka oo inta badan la sheego dadkiisa caanka ah qaybo ka mid ah in ay ka mid noqdeen ururkani ilaa maanta ururkani waa uu shaqeeyaa oo howlo fara badan ayaa waxa uu ka fuliyaa wadamo fara badan oo reer galbeedka ku yaala ayadoo weliba lagu xanto inay u soo gudbeen qaaradda Afrika ujeedadiisa ugu weyn waxa weeye in ay maalgeliyaan dadka ayaga u shaqeeya maalgelintaas oo laga helaya dad maalqabeena ah oo shaydaanka u adeega
mabaadi'da ay ku taagan yihiin ururkani ayaa waxa ah in lala dagaalamo dhammaan diimaha caalamka. Ururkani maanta waxa uu saameyn weyn ku leeyahay qaraaraadka iyo ujeedooyinka qaar badan oo ka mid ah xukuumadaha adduunka ka shaqeeya, isagoo si qarsoodi ah ama si toos ah saameyn weyn ugu leh go'aan qaadashada iyo howlgallada siyaasadeed ee wadamada qaar. Waxaa kaloo la ogaaday in ururka Illuminati-ga ay xubno ka yihiin qaar ka mid ah dadka caalamka ugu caansan sida maalqabeennada ugu cadcad dunida, fanaaniinta, ciyaartoyda, jilayaasha filimada, siyaasiyiinta. Sidoo kaleete ururka Illuminati-ga ee qarsoodiga ahi waxa uu maamulaa oo saameyn weyn uu ku leeyahay inta badan warbaahinta caalamka, sinimooyinka, shirkadaha filimada soo saara, kuwaasi oo u taagan sidii bini'aadamka looga dhaadhicin lahaa inay hoos yimaadaan boqortooyada shaydaanka iyo hay-ado badan oo dunida uga shaqeeya in ay yihiin samafal, balse u adeega fikirka shaydaanka ee la yidhaahdo Illuminati-ga. Ururkani waxaa calaamadiisa ah oo lagu gartaa 3 gees ama 3 xagal dhexda ee ugu taalla il, taasi oo ah calaamadda qof walba oo ka mid noqdo uu qaadanayo. Waxaa sidoo kaleete ay ku wada xiriiraan in labada farood, faryarta iyo farta kale ee suulka ku xigto, kor loo taago, suulkana la taago, taasi oo macnaheedu ay tahay labada gees ee shaydaanka. Illuminati-ga waxa ay dunida ku faafiyaan nidaam cusub oo la yiraahdo New World Order, iyaga oo meel waliba oo dhaqaale laga heli karo ka samaysta dad ayaga ka tirsan. Waxa ayna inta badan hoosta ka maamulaan madaxda Mareykanka iyo kuwa reer galbeedka. Intooda badan iyaga qofka ka hor yimaada waa ay ceebeeyaan marka koowaad, kadibna waa ay dilaan. Dadka ka tirsan Illuminati-ga ayaa inta badan waxa ay yihiin dad caadadoodu ay tahay wax diin ah inaysan u soo dhowaanin, dhiigga bini'aadankana ay cabaan, ayadoo weliba intaa ay u dheer tahay in wax naxariis ah aysan u lahayn aadanaha kale. Weliba dadka inta badan ay ku soo jiitaan lacag foolol caqli ah, taasi oo ay uga dhaadhiciyaan in howlaha ururka lagu fuliyo qofkuna uu noqdo taajir. Halqabsiga ay inta badan bannaanka la yimaadaan ayaa waxa ay tahay Illuminati noqo oo ehel la noqo maal. Ururkan ayaa waxa uu ku dadaalaa in uu soo jiito dad badan oo caalamka ka tirsan, weliba dadka diimaha kala duwan ku jira sida kuwa Kirishtaanka ah, Muslimiinta iyo Yuhuudda. Tani intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale, waanigoo inkaga tagaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. If you like the video, give it a thumbs up. Don't forget to subscribe to the channel if you haven't already done so. Click on the bell in order to receive timely notifications of new, fascinating, and interesting videos that are waiting for you ahead.